kadib roob lagu diirsaday oo ka da'ay deegaanada hoos yimaada degmada Bandarbayla ee gobolka Karkaar ayaa waxaa deegaankaasi tan iyo markuu roobkaasi ka da'ay ku sii qulqulay reer guuraa fara badan oo ka soo hayaamay deegaano kala duwan. gawaaridaasi reer guuraagani ay ku guurayeen ayaa isqabsaday dhammaan wadooyinka gala degmadaasi gaar ahaan deegaanka Dhuudo. gaadiidka oo sida dumar, caruur iyo xoolo ayaa u geedi ah deegaanada ay raxmadu ka da'day. mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland gaar ahaan agaasimaha waaxda qorsheynta oo safar shaqo ku tagay deegaanka ayaa booqday deegaankaasi gaar ahaan goobaha dadkani biyaha ka cabaan iyo waliba kuwa xoolaha ay daaqaan. wuxuuna sidoo kale kulamo wacyigelin la qaatay dadka deegaanka kuwaas oo ku aadan sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka geediga ah loona ilaalin lahaa amaankooda. usoo guray deegaanka Bandarbayla oo roobka uu ka da'ay waxaan ilaa xalay ilaa iyo maanta shalay inta aan joogay war bixinta aan helay horta gaadiidka yimid ilaa 2000 kor bay u dhaafayaan gaadiidka halkaan maray oo bayla aageeda yimid waxaana laga yimid meelo kala duwan oo ay ka mid tahay Buhoodle, Burco, Sool, Sanaag, Nugaal, Mudug dhammaan meelaan laga imaan oo hadda looga imaan ma jiro degmada Bandarbayla dadka hadda yimid waxaana loo yimid waa deegaanka. waxaan intaan joognay oo aan ka shaqeynaynay dadkan aan ku wacyigelinaynay inay dadka dhaqan wanaagsan iyo soo dhaweyn oo hore loogu yaqaanay dadka deegaanka Bayla. hadda isku baraarujinaynaa in hadda wanaaga iyo sharafta iyo ciziga hadda ilaahay idinka muujiyay oo aad leedihiin inaad kor u sii qaadaan oo ummadda kalena dhaqanka idin yimid aad si wanaagsan oo la dhaqantaan si wanaagsan mataqaana u soo dhaweysaan tuulada Dhuudood oo hadda Siciid khayr Allah siiyo si fiican buu shaqeeyay gudoomiyaha uu ka yahay dabcan wanaaga iyo xurmada iyo dadka mataqaana waxyaalaha aan ka maqalnay wax la koobi kara maaha Bayla ay leedahay. waxaan ku baraarujinaynaa dadkaas deegaanka ku nool alla dajiyay inay ka shaqeeyaan amniyaadkooda, nabadgelyadooda iyo dadka u yimid inay la noolaadaan si wanaagsan oo ugu la noolaadaan ay soo dhaweyn noqoto aanan cidna mataqaana cid ku xadgudbin. duqa degmada Bandarbayla Siciid Anteeno iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in soo dhaweyn loo sameeyay dadkani reer guuraaga ah. waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa shacbiga reer Bayla kaalinta qaangaarka ee ay ka qaateen sidii dadka noo yimi ee ka yimi Puntland deegaanadeeda kala duwan loogu soo dhaweeyay degmada Bandarbayla iyo nawaaxigeeda. waxaan leeyahay ku soo dhawaada Bandarbayla, ku soo dhawaada dhuldaaqeynkan aadka u ballaaran. degmada Bandarbayla saa ka wareysaan waa degmada ugu dhulka weyn Puntland oo dhan. waxaan kale oo aan iyaga ka codsanaya Bandarbayla waa peaceful, waa guri nabadeed, waa meel free ka ama ka xaraana hubka taas waa ka dardaarmaya. waxa weeye arrinta halkan biyaa ku jira biyaha halkaa ku jira ninka ariga soo raray oo ariga iyo caruurta wata uma tay karaan biyaha waa ka umay xaqootaa weey. dadkaasi waxay u baahan yihiin inay biyo helaan, inay caafimaad helaan, inay dawo helaan. deegaanada hoos yimaada degmada Bandarbayla ayaa xilligani waxaa ka jira culays xooggan oo ku aadan dadka reer guuraaga ee soo maciinbiday raxmadda Rabbi halkaas uu ku shubay walow ay jiraan cudurro saameeyay dadka iyo xoolaha sida ay sheegeen bulshada ku dhaqan halkaasi.